بني آدم كسيدو وديا دمان waxay ka wada yimaadeen aadam iyo xawaa markaa dadka bini aadamku waa dad midoway waxaan baraarujinayaa yaani cisho dhaweyd telefishinka waraan ka yara daawanayay hadii ku saabsanayd qadiyadan ay yiraahdaan heybsooca la yiraahdo oo dad muslimiina oo walaaladina yaani markaa gooni loo saarayo iyadoo loo daliishanayo dhaqan hore dhaqan xun ama markaa waxaan jirin oo markaa iska khuraafaada masalada heybsooca la yiraahdo in beela yaani muslimiina oo Soomaaliya oo walaaladina in markaa gooni loo saaro oo la yiraahdo yaani maaragtay waa dad noocaasa oo iyaga laga soo qaado dad xun innagana ka soo qaadna dad wanaagsan oo arrin qalad ah weey shariicada islaamiga iyo dhaqanka wanaagsan wax ku wanaagsan ma nusuus baan insha Allah kullu yar tilmaami doona aan badnayn oo ku xusuusinayno rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri al-muslim aqul muslim qofka muslimka ah qofka kale muslimka ah waa walaalkii weey marka qof kastoo muslima qofka kale muslimka ah walaalkii weey marka waxaan banaanayn qof walaalkaayo muslima inaad xaqirtid inaad hoos u dhigtid wax banaan ma waana arin xaraama sharci islaamka ku ah weey dhaqanka wanaagsan walidaalika ba ilaahi subhanahu wa ta'ala tilmaamay mu'miniintu inay dad walaalaa inay yihiin innamal mu'minuuna ikhwa mu'miniinta oo kaliya ayaa walaalaa ba ilaahi leeyahay nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri bihasbi imri'in min ash-sharri an yahqira aqahu al-muslim qofka muslimka shar iyo dambi waxa ugu filan in walaalkii muslima uu xaqiro wa hadith muslim ku sugan weey marka tahqiru aqi al-muslim qof walaalkaayo muslima inaad xaqirtid waxay ka mid tahay dambiyada waaweyn min kabaa'ir dunub masalada culimada ka qortay kutubta kabaa'irta la yiraahdo sida xaafid Shamsuddin ad-Dahabi way tilmaameen yaani waxaana la isku waafaqay inay tahay kabiiratun min al-kabaa'ir dambi weyn oo dambiyada waaweyn kamid ah oo qofka hadii uu ka toobad keeni waayana loo cadaabayo waa arrin khatar ah weey rabbi isagoo ina waaninaya في سورة الحجرات آياتها كجرة وينقوا وانين يتذكر المسلمين تهود الجركوغا وحي داوعي وحقرات ويكم التهين ليس إلى ليو أي ربي وحو لها يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ربي وحو يا أيها الذين آمنوا ذاتك إلهي رسولك سرمي مؤمنين تاو لا يسخر قوم من قوم قفنا قف يانو كدلدل ويانو حقير قف يعني مركاتي ولماذا وحي يرادين قوم waxa loo jeeda rag ayaa la hadlaya way shadriga damba ayada wala nisaa min nisaa ba soo socota qoom rijaal ayaa loo jeeda rag yaanay rag xaqirin oo aanay ku dheeldeelin ba ilaahay leeyahay maxaa yeelay casaa waxay mudan yihiin oo suurtagal ah an yakunu inay yihiin kuwa la xaqiraya ee lagu dheeldeelayo khayran kuwa ka khayr badan minhum kuwan xaqiraya waxa dhacda in qof wanaagsan lagu dheeldeelo qof xun uu ku dheeldeelo waa arin markaa jirta weey arintaasina arin loo goliyahay ma wala nisaa'un min nisaa'in dumarna yaani dumar ku dheeldeelin oo yaani xaqirin asaa an yakunna khayran minhunna waxay mudan yihiin kuwa la xaqirayo inay ka wanaagsan yihiin kuwa xaqiraya marka arintaasi xaramnimadeeda ay aayadu tilmaamaysaa in lagu dheeldeelo oo la xaqiro oo la aflagaadeeyo dad muslimiina oo markaa waxa weeye waliba la yiraahdo ma garanaysaa guurka ilaahay xalaaleeyay lagama guursan karo iyaguna markaa kama guursan karaan arintaasi waa arin xaraam ah weey waana arin ilaahay laga fogaanayo qof muslima oo la takoorayo qof muslimo la fogeynayo maanta waxa weeye gabdhihii Soomaaliyeed xitaa gaalada guursatay yaani waa ka daawatan internetyada yaani YouTube-ka yaani waxa guursaday gaalo kufaar ah ayaa guursatay yaani marka in la yiraahdo nin muslima yaani maarto Soomaaliya waliba in la yiraahdo yaani maaragtay la xaqiro oo qola iyo waxaan jirin lagu xaqiro arintaasi waa arin sharciga islaamka aan ku banaanayn oo xaraam ah Allah iska ilaaliyo marka waa arin khatar ah weey waxay xusuusinaya saxaabiga Abi Dharr la yiraahdo Abi Dharr al-Ghifari
sida saxiixinka ku sugan ayaa maalmaha ka mida wuxuu dacaayiday saxaabiga bilaal la yidhaahdo waxaan wada ognahay bilaal inuu nin madow oo afrikaana inuu ahaa wuxuu ku yidhi hooyadiibuu ku dacaayiday yaa ibnu ummatu sawdaa yacni islaan madow yacni na' madow oo kale ina na' madow oo kale qofka in la yidhahdo islaan madow baa dhashay oo kale waxyaabahaas way dhacdaa yani dadka iyagoo fudaysanaya marka waxa abudarri baa ku yidhi islaan madow baa ku dhashay muxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam hadalkii nebiga markuu maqlay wuxuu ku yidhi yacni acyartuhu biummihi abidarriyow ma waxaad ku ceebaysay oo aad ku dalaceysay saxaabigan walaalka ee bilaal hooyadii ma inay hooyadii islaan madow tahay ayaad markaa ku daleecaysay innaka imru'un fiika jaahiliya buu ku yidhi adigu waxaad tahay qof ay jaahiliyadu ka buuxdo aljaahiliya maa qabla alislaam waa dhaqankii xumaa ee ku dhisnaa alfaqru bilaabaa aabbayaasha in laiskugu faano yacni maarag waxaa la wada garanayaa taariikhdu inay sheegtay yacni markaa jaahiliyadii ama nebigu intuuna imanin ka hor sala allahu alayhi wasalam carabtu markay xajka tegayaan meesha musdelifo la yidhaahdo ayay tegi jireen habeenka bisha carafo ay 10 tahay halkaasaa faan yacni maaragtay nin kastaba aabihii buu ku faanayay buurta la yidhaahdo ee mashcarulxaraam hoosteeda ayaa qof kastaba gabay buu tirinayey uu ku ammaanayo aabihii ama awowgii ama qoladiisa yacni maarag ilaahay arrintaa xun isagoo ka nahinaya ayaa waxa uu ku bedelay arrin wanaagsan يعني ربي وكيلها واذكروا الله عند المشعر الحرام يعني وكيلها يعني ما رتي إلهي حسى كذكركم آبائكم وأشد ذكرى يعني إلهي أنت المركة أنت الأبيات ذو أمانة تنسك بدن إلهي ذكرك سيحسكي سو بضيع وحنقرنا هنا ولو ذوق ياهي وعوي قف كفانا آبيالي أبويال وعوي وارين خطروي qofka aamine ictiqaadiyin aabiyaashii ay dadka kale aabiyaashu ka wanaagsanayeen ama xagga abtirsiin ahaan isagu dadka ka wanaagsan yahay waa arrin islaamnimadiisa qofku ay khatar gelaysa wey culimaa muslimiin waxay isku waafaqeen adacnu fi nasab in min kabaa'ir dunuub ay ka mid tahay qofka oo qoladiisa laga caayo ama qabiilkiisa la aflagaadeeyo inay ka mid tahay dembiyada waaweyn qoladaasina dad wanaagsan oo badan baa ku jira dee qabiil kasta qof wanaagsan iyo qof xun waa ku jiraa haddii markaa la aflagaadeeyo ama la dacaayadeeyo arrin khatara wey waxaan garanaynaa beelahan aan ka hadlaynay beelaha gabooye masalan waa beelo runtii waa wanaagsan marka la eego xirfado wanaagsanna ku shaqaysta oo wax dhiba runtii dee cid ay u leeyihiin aanay jirin cid wax dhiba ay u leeyihiin aanay jirin kollay abwaankii la ohan jiray hadraabi ayaa kollay gabay dheer oo dhulgariir ugu magac daray kollay tiriyey gabaygiisi in yar baan kasoo yaro qoray gabay dheer buu ahaa yacni maaragtay wuxuu tilmaamayaa inayna waxba dhimin markaa yacni arrinkaa waxaa lagu saleeyaa inay tahay wax taariikh hore inay iyagu bakti cuneen waa khalad arrintaasi wax jira ma aha taariikh jirtana ma aha ee waa dulmi iyo zuur weyn waa xadgudub weyn markaa wuxuu lahaa isagoo tilmaamaya yacni dhegahooda maag baa qabsaday shayna may dhimine buu lahaa yacni waxaan lagu dacaydaynayo ayaa maskaxdooda galay yani laakiin ciday wax u dhimeen ma jirto hadalladiisa waxaa ka mid ahaa sibaa loo dhaliilaa haddana ruuxna may dhibine yani waxaad arkaysaa in la caayayo iyagoon cidna wax u dhimin 24 sac la caayayo wuxuu lahaa dhulka waa kasii guurayaa ruuxna may dhicine dhoof bay ku daysteen inay sibiq dhaqaaqaane dhalashada inay dooriyaan bay u dhowdahay yani xitaa waxay u dhowaadeen inay jinsiyadda soomaalinimada ay ka baxaan waayo haddii lagugu dhibo dee meesha lagugu dhibo la iskaga tegaa marka walidalik yani maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala qur'aanka wuxuu ku yidhi yaa ayuha annaas inaa khalaqnaakum min dakarin wa unhaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu rabbi isagoo inoo tilmaamaya xagga fadliga iyo wanaagga haddaad doonaysaan ilaahay wuxuu yidhi dadoo waxaan idinka abuurnay aadan iyo xawaa min dakarin wa unha rabbi wuxuu yidhi wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila waxaanan markaa idinka dhignay shucuub iyo qabaa'il shucuub waa dawlado iyo qabaa'il ku hoos nool rabbi wuxuu yidhi litacaarafuu si aad ku garataan keliya oo qabiilka waxaa looga jeedaa in qaraabadaada inaad ku xidhiidhisid
وهو يدا دتك إيلكيغا يا أباها دتك إيلكيسا سيادو قرتد ويان ولتعارض ربي وحد المامي بني آدم كو حيجعلين شرف يا كرامة إني هلان ربي وحد المامي وحي أي بني آدم كو أي شرف يا كرامة أي كويري لهاية قفكي وناك يا كرامة دوني وربي وحيري إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إلهي أكتي سوحي ذكو كرامة بدن قفك إلهي كفقه marka hadii sharaf noqoto dadka waxa ku sharaf badan qofka muuminka ah ilaahay caabuda ilaahay markiisa qaata waxa laga yaabaa ku daydayo tuuga oo qaayna oo waligiis sujuudin inuu isku haysan dadka ka wanaagsan yahay arintaasi waa arin marka aad u qaldan weeyaan dadka muslimiintuna ilaahay subhanahu alayhi salatu wasalaam wuxuu yiri adiinu an-nasiha diintu waa nasiihad weey waa dul isku waaniyo weey marka walidaalك cunsuriyadaas waxaan u maleeynaa waqtigii la baabiinayay in la gaaray waxaan rajaynayaa in qof kasta muslima in oo hadalkayga maqlaya ama hadalka culimada uu maqlaya inuu cunsuriyada hadda deeto hore uga socdo inaan qofna lagu xaqirin nasab iyo abtirsiin isagoo qofku uu yahay qof muslima oo ummadda Nabi Maxamed kamida salawaatu Allaahi wa salaamu alayhi